kulan ay isugu yimaadeen isimadii cuqaasha waxgaradka deegaanka Buuhoodle maanta ayay si weyn ugu taageereen shirweynaha Khaatuma Labo ee laga yaabo dhawaan inuu ka qabsoomo magaalada Taleex waxaana maanta si wada jira isimada cuqaasha culimaadudiinka waxgaradka deegaanka Buuhoodle shir ay ku taageerayaan shirweynaha Khaatuma Labo ee laga yaabo dhawaan inuu ka qabsoomo degmada Taleex ay ku qabteen hoolka shirarka ee magaalada Buuhoodle shirkan ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa maanta si rasmi ah uga qabsoomay magaalada Buuhoodle waxayna sheegeen dhammaan isimada cuqaasha waxgaradka deegaanka Buuhoodle inay soo dhaweynayaan isla markaasna ay taageersan yihiin shirweynaha Khaatuma Labo ee ay kaga tashanayaan dowladda dhulbahanta arrimaheeda iyo danaheeda laguna qaban doono degmada Taleex sidoo kale waxay isimadu intaasi ku dareen inay shirkaas taageerayaan isla markaasna ay ka soo qayb galayaan iyaga oo si wada jira si buuxda uga soo qayb galaya shirweynaha Khaatuma Labo kulankan ayaa isagu maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee magaalada Buuhoodle waxaana run ahaantii shirkan soo buuxdaafiyay isimo cuqaal culimaadudiin iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle maaha markii ugu horeysay shir lagu taageerayo shirweynaha Khaatuma Labo lagu qabtay magaalada Buuhoodle walow shirkan uu ka sansan balaarsan yahay shirarkii hore lagu qaban jiray deegaanka Buuhoodle والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هل كان شركا على كيسان وحا فديا وحقرت في Buuhoodle gobolka Cayn oo uu gudoominayo Garaad Cabdullaahi Garaad Soofe cuqaashii culimadii من قرباتي دمان وحقرت gobolka Cayn baa fadhiya madashan adagaysa shirkaas oo loogu talagalay in uu gobolka Cayn ku soo gudbiyo ra'yigiisa kaga aadan shirweynaha la waday ee beesha dhulbahante shirkaas haddii la falanqeeyay waxa kaga aadan gobolka Cayn waxgaradka gobolka Cayn wuxuu isla qaatay shirkii lagu qabtay London Khaatuma 1 go'aankii ka soo baxay abaabulkii ka soo bilowday lagu soo diray gurbajoogta maraysay deegaanka beesha dhulbahante go'aamadii ka soo baxay oo ahaa Khaatuma 2 in lagu qabto gudaha dalka loona cilaamiyey Taleex in ay taageeraan oo qaataan waxaanu kale halkan ka soo jeedinaynaa haddaanu nahay waxgaradka gobolka Cayn in shirkaas cid kasta oo isku dayeysa inay waxyeelayso inay ka joogto oo ay ka dayso burburinta waxaa la isku raacay Khaatuma 2 raggii waday in lagu taageero la isgarab taago shirkaasna uu noqdo shir ay ku tashato beeshu ay kaga tashato aayaheeda iyo danaheeda aakhiro iyo adduunba inay kaga tashato waxaanu ka hortegaynaa cid kastoo caqaadaynaysa waxaanu halkan ka caddaynaynaa in cid ka tirsan maamul ka horeeya shirka oo lagu matali karta maamul inayna jirin shirka ka hor ilaa shirkaas intuu dhacayo go'aanna ka soo saari karta baan halkan ka caddaynaynaa waxaanu kaloo halkan ka sheegaynaa odayaasha dhaqanka ee dhulbahante inay taageeraan shirka lagu qabanayo Taleex meel kasta ay joogaan hadday yihiin isimada hadday yihiin cuqaasha waxaanu leenahay dhulbahante masayrkiisa iyo aragtidiisa ha taageeran hana raacin hana uga dambeeyeen danihiisa iyo tashigiisa oo yaan la burburinin oo la caqabadayn waxaanu leenahay waxaanu ugu baaqaynaa cuqaasha gobollada dhulbahante joogta in ay baaq soo saaraan kaloo kala ah oo ay fikirkooda iyo ra'yigooda muujiyaan waxaanuna jecel lahay inuu dhulbahanta midoobo
tashado aayadiisana ka tashado wixii dalloodana qaato waxaa intaas marka hore loo kula mayno ilaahay ka yaabo waxaa kale oo aan raacinayaa waxaa weeye hadal ninkii badiyeyna ma dhamay ninkii waxya ka yidhina kama dhigtigi waxaanu taageeraynaa waanu dowrahay marka hore shirku waanu isla doonay haddaanu nahay gobolka cayn rabuuhoodne gobolka cayn haddaanu nahay inaanu shirku uu noqdo kalax uu noqdo meeshii ay dowladootu soo daafaceen inuu noqdo siyaasadee ayan ku jirin gaanigu hadalkiiba intaasaan ku soo gaabinay ee meel walba joogta gudaha iyo dibaddaba waxaan ku salaamayaa salaamta sharciga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kadib markaan u noqdo arrinkan annagoo iska fadhiyo diyaarsana arrinkaas garagaalo kala soo sameeyey raggaadi warbajoogtii soo tariyin aayaha dhulbaantan ka soo tariyeen markay ka soo tariyeen waa u keeneen dhulbaante haddaanu nahay gobolka cayn waxaanu go'aansanay shirkaa inaan naga dagaareen wixii aanu ku tari kara ee ku tarno dhan baa ku jirta dhulbaantada waxaanu ka codsanaynaa sidaa aanu annagu u tashanay inay ku tasnaan shirkaa farxad iyo wanaag laga eego kii turin kara ee laga yaaliyo waxaanu go'aansanay haddaanu nahay gobolka cayn shirkaa raggii markii hore soo garagaabiyey ee faatowan shawgiisa awal wa aakhir inuu daadeeyo iyo faatooto laga dambeeyo wixii markaa leexdaa laga toosiyo annaga dabadabahdabu waa sidaa waxaanu leedahay qofkii caynu gashay gobolka cayn ninkii u gashay noo kastoo harigu ha raaco dadkiisa ha soo raaco dadkiisa hala mijeeyo hadalka annagu intaasaan feerxaynaa khatooyna hadayaa ku xatay gebagabadii shirkaasna waxaa soo afmeeray garaad cabdilaahi garaad soofo oo ah shirguddoonka shirkan maanta lagu qabtay magaalada buuhoodla xarunta gobolka cayn waxaana garaadka hadalladiisii ka mid ahaa uu kaga beegahay ha ka qaato isagoo doorkii kaga beegeen ha ka qaateen odayaasha caaqiliinta iyo waxgaradka doorkii kaga beegeen ha ka qaateen dadweynaha maaragtay balaaran doorka ka beega ha ka qaateen ha la isugu yimaado hareeraha laga fadhiisto marka laga fadhiisto ha lagaga tashado go'aamo dadka wax anfacaya insha allah ayaa ka soo bixi doonaya sidii dadka maaragtay wax ma anfaca loogu soo saari lahaa hareeraha laga joogo sidaasaanu isla garanay waxaanu la ugu dambaysiinaya khilaafka layska ilaasho khilaafka xabuu burburiyaa waa ka soomaaliya halkaa dhigay ciddii khilaaf dhex gaarana waa burburaysaa khilaafka layska ilaasho shirku ha noqdo shir muwaafaqo shirku ha noqdo shir la wada tashado shirku ha noqdo shir danaha lagu falanqeeyo shirku ha noqdo shir maaragtay go-aamo wax ku eego dadka anfaca aakhirada iyo suduurkaba uga soo baxaan intaasaan naguna ku darayaa intii odayaashu iyo wabillahi tawfiiq shirkan maanta ay qabteen isimada iyo cuqaasha waxgaradka deegaanka buuhoodle isla markaasna ay ku taageerayeen shirweynaha khaatuma labo ee laga yaabo dhowaan inuu ka qabsoomo degmada Taleex ayaa isagu ah shir si heer sare loo saagaasimay isla markaasna ay ka soo qayb galeen isimo cuqaal culamaa diin iyo waliba bulshada qaybaheeda kala gedisan shirkan oo looga hadlayay arrimaha iyo danaha beelweynta dhulbaante isla markaasna ay ku taageerayeen shirweynaha khaatuma laba waxaad moodaa maanta isimada iyo cuqaasha waxgaradka deegaanka buuhoodle inay si heer qaran ah u soo dhaweynayaan isla markaasna ay taageerayaan cid kastoo ka shaqaynaysa arrimaha iyo danaha beesha dhulbaante najiib cabdiweli cabdixiis telefishinka caalamiga ee All Cayn TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.